بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد teemadan maanta waxaa la dhahaa maxaa loo dhalayaa caruurta haddii aan mas'uuliyadooda la qaadin sidaan wada ognahay oo aan shaki ku jirin meelna cidna wax ka qarinayn waxaa soo badanaya oo Sweden ku soo badanaya dayaca ka jira dhinaca qoyska ka jira dhibaatada ugu weyn waxay ku dhacdaa caruurta qoyska burburay bay ku dhacdaa dhibaatada ugu weyn su-aashu waxay noqonaysaa yaa abuuray dhibka inuu dhibkan dhaco waaba dhacay yaa abuuray ta koowaad ugu weyn ugu horeysa waxaa dhibka abuuray oo ka ah mas-uul qoladan reer galbeedka aynu la deganay waa mas-uulka iyagoo sheegay yacni qab qalada noo sheegay waan dadka qaybtiis fahansanaynba waxay ku leeyihiin gabadhu wiilka waa doonan kartaa xataa ma oran wiilkii gabadhu way is doonan karaa waxaa gabadhu wiilka way doonan kartaa taasina sax ma gabadha wiilku gabadhu isagaa doonan kara gabadhu iyadu waa noloshii qoyska wey yacni qoys aan xaas iyo jirin ma jiro nolol ma jirto ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار محيط ربنا آتنا في الدنيا حسنة دينا حسنة وامعي وزوجة حلالة وناكسنة طيبة marka waxa weeye gabadha waa la doonan karaa gabadhuna waa noloshii qoyska wastarankiyayna waa waxaan kaloo sheegayaa ilmahan la dayacayo oo meel walba iska taagan oo dhibta ugu badan ku dhacaya wax dembi ilmahaas leeyahay ma jiro innocent waa dembi ma leh labadan waalid iyagaa qooqay iyagaa doonay inay wax samaystaan iyagaa ku khasbay inay caruur dhalaan caruurtan marna ma oran waxbaan dhalayna marna caruurtan ma oran aabba ama hooyo kaalana dhalay idinkaa doontay marka ilmaada reyaal waxaan ii sheegayaa caruurta dayacan ka daaya idinkaa doontay idinkaa isdoontay idinkaa caruurta keenay caruurta marnaba telefoon iyo warqadaynima soo dirin ma oran kaalayna dhal markay yimaadaan mas-uuliyaddooda qaad oo waroyninow take your mas-uuliyaddaada qaadanayo jabtarkaas waxa weeye caruurtaada maantay kuu baahan yihiin berisaadaa u baahan xanaanay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu